كشلكن أما شبع عرضك شدي راحة مدون شبل أو شكيب مالك شيب والله هلا شرا شعبك وينو دغ شر مالنا قيال شركنا قول الدنيا ذا جامر كذا جنرا سيدا شريا غير بلي كشلكن أما شبع عرضك شدي راحة مدون شبل أو شكيب مالك شيب والله هلا شرا شعبك وينو دغ شر مالنا قيال شركنا قول شرت لقبتبا أدوشينا ورشوش لنا ود شاشينيو شكاكيو دود شهوب لئيا شلون بيا مروحسي شدائيا للشهور هذا شكر سماها أدوشي بشيكر نحر دران لشرشر بين شتين نقطو شعبي ومر بيها لغا شرا تنتقو أشوريو شركة لقبتها أدوشينا ورشوش لنا بد شاشينيو شكاكيو دود شهوب لئيو شلون بيو مروحسي شدائيو للشهور هذا شكر سماها أدوشي بشيكر نحر دران لشرشر بين شتين نقطة شعبي ومر بيها لغا شرا تنتقو أشوريو نوشيغا وناك لساعين كارو وشميه شروضو شبنا قدها شكرا سعودتان وشيقونه كاشيحة وحين شرفت لي كاشيحة وحين شرفت لي شدنا لجو طيبح شار صوصعتا ديرا شدنا لجو طيبح شار صوصعتا ديرا إن شاء الله شوش كانوا نواشا فاع الله شمبتي نبدي جلت بوباي شوتو صدق شمبتي نبدي جلت بوباي شوتو صدق شدنا لجو طيبح شار صوصعتا ديرا شدنا لجو طيبح شار صوصعتا ديرا إن شاء الله شوش كانوا نواشا فاع الله شمبتي نبدي جلت بوباي شوتو صدق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان شعبك الصوماليات ميل والبو دافها دنيا كجوكتان سو دوادا halka aad nagala socotaan waa difaac qaran soo dhawaada dhamaantii shargaraya maanta war xiisalaan idin hayaa warbixintii feega ahayd ama beenta ahayd ay soo qoreen kooxihii amisom ee dalkeenna dhibaatada ku hayay ee nagu dul noolaa ee nabadda noo diidanaa ee inaan dawlad noqono diidanaa ee qandaraaska nagu qaadanayay oo inaan ciidan dhasana diidanaa oo muddo 14 sano na dul fadhiyo oo raba in 10 sano kale loo jadiidiyo maxaa keenay saacadan inay cabaadaan warbixintaasaan rabaa inaan la wadaago sidoo kale hogaamiyaha kooxda Aranjan ee fadhigiisu magaalada Garowe ee safaradii dibadda uu ku tagay Nairobi iyo Imaaraadka ku soo hungoobay safarkii magaalada Kismaayo ku soo hungoobay shacbiga reer Puntland oo ka soo horjeestay sidoo kale kacdoon baarlamaanka Puntland looga soo horjeedo Siciid Dani oo ka curtay
xaaladdu saakay meel la ciirsadaa ma lahan hal la shargareeyo dhammaantiin waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed la wadaago sababta keentay kooxdan la yidhaahdo amisom inay saacaddan ku soo aadiyaan warqadda qoraalka ah ee aan sal iyo raad lahayn qof kasta oo soomaaliyana waa garanaya qof kasta oo soomaali ah saaka iyo caqli u saaxiiba ee dalkan jooga wuu garanayaa dowladdii maanta dalkan ka dhalatay dowlad wanaag xasilooni dhismo ciidan la dagaalan musuq maasuq sharaf iyo karaamo dalkan u soo hoyday qof walba oo soomaaliya wuu garanaya qofka cadowga ahna ama dadkii ku dul noolaa dalkan safiirkii amisom askartii amisom ee dadkan ku dul noolaa ee dhaqaalaha ku dul qaadanayane de way ka naxayaan oo waxay rabaan inay meesha sii joogaan oo ay lacag ku sii qaataan dowladda federaalka soomaaliya safiirkeeda iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiirka UN-ta u fadhiya labadaba waxay ka caddeeyeen in amisom aan loo jadiidinayn soomaaliyana ciidan ku filan oo amnigeeda sugo ay dhisatay inaan amisom saacadda laga bilaabo loo jadiidinayn waa walaalo dhiigooda noo huray wakhtigoodii waa dhammaaday annaga hadda xilligan inay na dul joogaan wax caqliya ma keenayaan waa inay United Nations dhaqaalaha ay ku bixinayaan amisom oo faraha badan inay ku bixiyaan ciidamada qaranka ee tababarada ee isdaba joogga u socdaan oo saaka ciidankeena lagu qiyaasay 50,000 oo askari inta tababarka ku jirto iyo inta joogto 50,000 oo askari oo special force aan haysana amisomna waa 20,000 qorshaha amisom dadkeeni waa xanuunsan bogtay qorshaha amisom ay dalkeena ku joogto iyo qaabkay u degan tahay amisom horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago amisom waa maxay amisom waxaa samaystay Ethiopia Kenya iyo dalka la yiraahdo Djibouti Soomaaliya waa la qaybsaday saddex baa loo qaybsaday Kenya waxay qaadatay hay'adihii international aid-ki iyo dhaqaalihii bay qaato saldhig u noqotay Ethiopia waxay qaadatay arrimaha ciidankii qandaraas ku qaato meelasa sanaawaad todobaad lacagtii ciidankii faraha badnaa dalka soo galiyay Djibouti waxay qaadatay ka dilaalada siyaasadda Soomaaliya iyo isku dirka ummadda Soomaaliyeed ee qandaraas ku qaadatay iyo cid walba Soomaaliya faragelin ka rabta iyo qof cid walba Soomaaliya dana kale ayay ayadana qandaraas ku qaadatay saddexda dal baan u kala goosnayn oo na kala qaybsaday oo dad nagu dhax samaystay oo siyaasiin meel ay u socdaan iyo meel kale aan garanayn oo kursigay rabaan qiimihiisa aan garanayn oo dalka qiimihiisa aan garanayn ayay ku shaqaysanayeen tii maanta waa la iskala baxay siyaasiin waxaa dalka yimid oo ugu horeeya madaxweynaha oo in wax loo yeeriyo aan ogolayn dabadeed danihii ay lahaayeen iyo masaalixda dowladaha lahaayeen way ka hor imaadeen dowladdan baa ka hortimo taasaa keenta amisom inay cabaado amisom ciidamadeeda goormee howlgalla ugu dambaysa ay qaadaan inta aan ka ahayn waardiyeynta xarunta dekedda iyo aeroboorka iyo xalane iyo sektarada kale sida baydhabo iyo meesha la yiraahdo maxay ahayd beledweyne oo ayadana ay xarumahooda fadhiyaan iyo magaalada Kismaayo oo amisom ay ku joogeen occupation ay tahay dadka qabsatay amisom goormee howlgalla ugu dambeeyay ciidamada qaranka Soomaaliyeed ayaa howlgallada si toos ah u wada gobolka Shabeellada Hoose waxa ka howlgalaya ciidamada qaranka gobolka Gado waxa ka howlgalaya ciidamada qaranka gobolka Boqol waxa ka howlgalaya ciidamada qaranka gobolka maxay ahayd Bay waxa ka howlgalaya ciidamada qaranka gobolka Shabeellada Dhexe waxa ka howlgalaya ciidamada qaranka oo aysan tarixin amisom howlgab baa laga dhigay saldhigooda ugu dambeeyay oo dheegla waa laga soo raray kii afgooyo waa laga soo raray ciidamadoodii dib loo aruuriyo oo sanadkan la daabulo bisha September bay ahayd ballanta United Nations iyo dowladda wada galeen hadda maxay tiri marka 4 sano la soo dhaafay dalka xasilooni ma jirin amisom waxaan leenahay shacbiga Soomaaliyeed weydiinaynaa xasiloonida amisom waxay u aragtaa Francisco Madero Gabre ina Cabdi Afay safiirka Djibouti Nicholas Kay iyo madaxweyne Soomaaliyeed oo ayaga xukumaana xalna ugu yeertaan oo dhaqaalaha Soomaaliya lagu kala goosto mashruuc ay Soomaaliya ku socoto waana halkii uu haysta ka qaaday wasiirkeena maaliyadda Soomaaliya waa mashruuc adaan moogow ogeyn Xasan Sheekh Maxamuud baa lagu lahaa adaan moogow ogeyn Soomaaliya waa mashruuc ma ogeyn asaga wasiir buu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ayuu u ahaa dowladdaasi adaan moogow ogeyn Soomaaliya waa mashruuc markuu leeyahay Cabdiraxmaan Bayle adinku ma fahmaysaan macnahaas
adinku macnahaasi ma fahmaysaan safiirku waa nin wax wasiirku waa nin wax bartay oo hay'ada caalami u soo shaqeeya bangiyo u soo shaqeeyay dhaqaalaha dalkan soo galay wuxuu arkay hawada lagu kala goosanayo oo safiirada xalana fadhiyo lagu kala goosanayo wuxuu arkay madaxweynihii dalka Soomaaliyeed oo sida barasaab magaalo jooga loo dhaqmayo wuxuu arkay fargelinta tooska ah ee dawladaha cadawga ah ee dalkan ku soo duulay ee shaarka amisom soo gashay ay fargelinta ku hayaan waxaasna markuu arko yiri Soomaaliya waa mashruuc cadaan moogow ogeyn Soomaaliya waa mashruuc markuu inta ku yiri ayaa wasiirka xilka laga qaaday cidda marka walaykum asalaam soo dhawaada dhamaantii shargalay cidda marka aan garanayn ee waxa loo maldahayo ama beenta loo sheegaya waxay tahay amisom inta ay nala joogtay 2015 kibay timid amisom Uganda u soo horeysay Ethiopia shaarka si qasab bay ku gashatay Kenya qasab bay ku gashatay Djibouti qasab bay ku gashatay cid dalba tamala baarlamaan u codeeyeen ma jiraan dhammaantood waa soo galeen waxayna ka shaqeeyaan masaalix dawladahooda ay leeyihiin wax danta Soomaaliyeed mid ka shaqeeya ma jiraan waliba waxa noo dheer kufsi taadi dil xasuuq diyaarado ayaa shacbiga Soomaaliyeed u dheer bal fiiri bal ina qofka xisaabtamaal rabaa amisoomta ciidamadeeda haday nabad ilaalin yihiin nabad ilaalintu shuruuc bay leedahay nidaam bay leeyihiin amisom ariyaha fuulays xagga lagu arkay amisom gabdhaha fuulays xagga lagu arkay ciidan nabad ilaalin dal tagay oo gabdhaha fuulayo oo dadka dilayo oo masaakiinta leynayo oo madaafiic ridayo oo diyaarado aan mandate-keedu ku jiraan isticmaalayo ayaa maanta hadlayo waxa la intuu dib qaba hadlin baa dheef qaba hadlaa annaga dhibana ahayn annaga dacwadooda gudbinay meel walba u gudbinay dawladihii waaweynaa u gudbinay amisom waxa ku dhacday dhaqaalihii ay siinaysa midowga Yurub ayaa u diiday oo waa laga goostay taasa marka keentay inay dunida u sheegaan laakiin waxaysan ogeyn anigu dawladdan maanta talada haysay oo hogaaminaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gaalo waa uga aman qaba gaalo waa ka adag gaalo iyo qandaraasyste iyo mashaariiciste iyo tuug dalkan inuu qabsado rabo waa ka adag sharci buu nooga adkaanaya laakiin waxa diiflaha ay soo dirayaan masaakiinta dacuflaha umba qabiilka ku gabanaya ma ahane kuwa shuruuc iyo nidaam u maro ayuu leeyahay woonu ka adag laakiin daacuflaha meelahan taagtaagan ee darbiyada taagan ee wareersan ee qabiilaysan ee dhufaysada qodanaya umba daran ma ahe kaasi waa laga adag yahay qaab loo maray shuruuc horta madaxweynuhu yaqaana iyo dawladdiisii dadkan wasiiradan kullu arag waa Bayla joogo waxa joogo Jamaal waxa joogo Roble waxa joogo wasiir Farmaajo mursala joogo ragga meesha fadhiyo gaala sida loola hadlo aaday u yaqaanaan dad cid looga turjumayo maanta ma jirto waxa nooga darnaan lahayd reer hebel musharax hebel oo reer hebel ah ayaa meel god ka qotay oo isbaara dhigtaan nooga darnaan lahayd laakiin gaala waa ka adag marka waxaan rabnaa qof walba Soomaaliyeed aan u sheegno cidii wanaag ku qabto amisom-tan waxaan lagu leeyahay amisom waxay cadow ku tahay oo ay ka soo horjeedaa dawladnimada Soomaaliyeed waxay trade ku tahay oo diidan tahay in ciidamada qaranka Soomaaliyeed uu leeyahay la dhiso dunida ma jirto meel 15 sano ciidamada nabad ilaalin iska joogaan oo ay lacag ku qaataan oo Soomaaliya ahayn maxaa dawladii Shariif ciidan loo dhisi waay maxaa tii Xasan ciidan loo dhisi waay maxaa tan Farmaajo ciidanka markii loo dhisi loo diiday maxaa 6 bilood ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha isma dhicin baarlamaanna isma arkine maxay ku direen asaga iyo amisom iyo ninka leeyahay maxay hayto odagii Yoweri Museveni ee marka amisom watay maxay ku direen waa inaad isweydiisaa maskaxdaada ka shaqeysa haddaad marka dalka wada leenahay aad gudnimo doonayso oo in lagu gumeeyo aad doonayso oo in lagu bahdilo aad doonayso ee dalkan ay wax ogaanta oo yaashar u soo mareen ee halganka ogaanta loo soo maray ee lagu soo dagaalamay ee loo soo waxaysmay aad doonayso inaad sahal ku bixiso oo doqon daciif oo aan garanayn masabkay u socotay ee meesha u socoto ee dalka inay iibsato rabta qabyaalad aad ku taageerto dalka annaga iskala waa ka difaacanayna dalka annaga iskala waa ka difaacanayna musharax Soomaali wadato oo Soomaali ahaan rabnaa laakiin musharax in adeerka ah oo reer hebel ah oo dawlad hebel wadato dalkan annaga iskala waa ka difaacanayna shirkada barnaamijka daacuflaha meelaha taagtaagan oo aan waxba garanayno annaga ka difaacanayna dalka mana ogolaanayno labada maalin cibaadada ku maqneen maadaama bisha lagu jiro bishii ahayd Arafaa ay tahay oo cibaadada aan ku jirnay baan xoogaa u yara gabanay laakiin hadda waa soo noqonay oo cibaadadii tanba waa cibaado waa in hawshan la qabtaa oo qarankii loo qabtaa ayaa muhiim noqotay wad ogtiin bishan waxa weeye bilay u barkeysnaa bilaha sooman baa lagu jira howlaan ku jirnaa cibaadaysan cindiga ku hayay danamoogu cilna ciyaarahay maraysaa markaasay waxay la soo istaageen
دكتور هبل wax ka sheeg gabar hebel baa la afduubtay inta wax la geeyay amisom inta wax tiri baqaaqdoodan ka fariisan weyn marka waxay qasab nagu noqotay inaan anagu cibaadeysanayna mar labaad hadana ku sii cibaadaysano oo aan runta sheegno oo aynu ku niraano annagu war dal madax bannaan baan nahay ciidamana waan dhisanay amisom hadday United Nations ku rabaan dalkan inay dhisaan oo Soomaaliya dawlad noqoto ciidan baan leenahay 50,000 oo askari oo special force oo police leh oo military leh oo commandos leh oo nooc walba ahaan haysanaa howlgalladii u dambeeyay 3 sano u dambeysane annaga amisom nama kaabayna annaga iskaabayno isku filnayn intaas United Nations safiirkeena غير الله siiyo Abu Karbaalle ka yiri shargareeya barnaamijka Abu Karbaalle intaas uu ka yiri safiirkeena in an amisom saacadan laga bilaabo wax looga baahan yahay jirin ciidamada Soomaaliyeed ay u baahneen wax garab ay wax gurmad ah amisomna xeero ku xariisiin lacagta ku qaataan marka dunida wax ma taqaana Soomaaliya garab istaagayso illa waxaan wax deyn annaga nagu hadhow naga la rabo way oo nagula mana sheeganayo maadaama ay yihiin waxaan wax nagula mana sheeganayo inay ciidamadeena si toos ah loo siiyo oo ciidamada qalabka sida meesha ay amisom fiiri askariga Ugandayska ee caawa xerada xaalana ku dhex jiro iyo kan Kenyaatiga caawa gabdhaha naga xoogayo ee dadka naga dilayo $1,500 buu qaataa $1,500 ayuu qaataa hadduu dhaawacmo 25,000 way hadduu dhinto waa 50,000 way bal fiiri haddii askarta Soomaaliya $500 cala askariga la siin lahaa dhibaato lama arkeen qalqalna lama arkeen xasilooni daran lama arkeen waxa kuwan gadaal ka taagan ee dani balbalaarka ee balaayada ee waxaan wado ee dhahay ciidan qaran yaala dhisin ee Soomaaliya iyo isu imaan waxa dhahay dawladahana raalika ha awoodda xagga noqonayso reer hebel baa waxaynayo Soomaaliya qatar bay ku tahay ciidamada maamul goboleed fiiri shirki London ka dhacay waxa lagu heshiiyay oo maamul goboleedyada dawladda federaal ku heshiiyeen in ciidamo qaran oo military la dhiso maamulada laga soo qoro ciidamadii koonfur galbeed waa laga keenay Hirshabeelle waa laga keenay Galmudug waa laga keenay waxaa diiday labada maamul saddexda maamul oo Somaliland iyo waxaa diiday Puntland iyo midka Kismaayo fadhiyo ayaa diiday maxay u diideen marka waxay ka cabsi qabaan dawladnimada waxaysan lahayn bay haystaan kabacdi dawladda marka waxay samaysay maadaama ay saatahay xildhibaanadii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee baarlamaanka ku jiray ayaa waxa loo diray ciidamo qaran soo qoran nin walbow adood ciidan adamiin ka tahay dhalinyaro reerkaaga ay tuuladaadi maadaama maamul goboleedka diiday daaroodo wixii halka degan Kismaayo degan soo qora wixii degan gado degan soo qora wixii bay degan soo qora saasa wax loo soo kala qoray ciidamadii marka waa looma joojin ciidamadii waa la dhisay oo waa kuwan maanta qaarna ku soo tababaranayaan Turkiga saa u soo daadanayaan waa kuwa Eritrea hadda qaar ku soo tababaranayaan 12 kun waa kuwa dalka jooga ee 20 kun waa kuwa howlgallada iyo wax ay fulinayaan iyo aad arkaysaan goormeyn kugu dambeysay meel qarax ka dhacay amisom imaanayso wiilashan xargaha wata ee fuulayo ee daaqadaha ka soo dhacayo ma amisom baa tababartay ee guryaha qaraxa ka dhaca galayo ee haram cadlay wiilashan gargaraha xidigaha ku booday ma ayaga keenay wiilashan duufaan ma ayaga keenay waxaan dal tashaday iyo dad tashaday dawlad tashatay ciidan dhisatay diyaarsatay ayay hadda xilli dambe dhawaaqeen laakiin loo joojin ma inaga baxaa la leey intaasi amisom baan uga baxaynaa amisom xaar iyo wasaq iyo fusqi iyo dadka inaga disho iyo been been ugula joogtee ha naga baxda dalkeen waan isku filanna hadda dhowr iyo labadaas 800 oo wiilo dhudhumaalaysanaysan ciidankeena qaranka ku filan dawladii nagu taageeraysay waxna siinaysan ee United Nations iyo cid walba European Union ciidamada qaranka Soomaaliya garab istaagaano tababarada ma taqaana waxa ma taqaana tababaraano dhaqaalaha siiyaan raashin ha siiyaan ciidankeena ayaa dalkan galay hadaysan siinayn saaxiibo nagu filan oo ciidan oo tababarno waan haysanaa dhaqaale nagu filanna waan haysanaa dalkeenuna waa isku filan xilligii wax loo yeerinayay ma ahan persona non grata ayaa taalo dawladana waxay awood u leedahay inay tirada amisom NF dalka inooga bax marka waxa way shabakado ma taqaana isgaashan bureystay oo isku xiran oo qaar Soomaali leh qaar cadaan leh qaar madow leh oo isku xiran oo dhowr iyo 30 sano dalkan burbursanaa ka macaashay ayaa waxaan mu'aamaraadkan ka soo shaqeynayo laakiin hadda amisomta laga sheekeynayo Uganda mar hore iskaga tagay dinihiisu ka raacday markuu arkay dhaqan xumada Kenya markuu arkay dhaqan xumada Djibouti markuu arkay dhaqan xumada Meel Zanaawi uu waday uu ka fariistay hadda amisomta
waxaa ku shaqaysanaya sideed bannaan bal saddexdaa dowladood Ethiopia qadka ka baxday labadaana soo haray kii marka nafta ahaa ee dadkii 300 oo kun oo dadka masaakiinta ee Soomaaliyeed iyo canfarta daqsiga cunaya haystay ee baaba'saday ee asagii naagtiisa iyo qoyskiisa ka noolaadeen ayaa wuxuu ku leeyahay Soomaaliya waxa soo qorqoray waa in Cumar Geelle waxaa kaloo soo qaylay kaaf mataqaana doonaya dalkeena inuu qayb kamid oo muhiim qaato ee Kenyaanka oo waxa ma soconayaan Soomaaliya waxaan leenahay dalka inuu istaagno gabdhuhu waxaan leenahay silsiladaha fura ciidamada qaranka aan garab istaagno dalkan aan dhisano jawaasiista la soo diray ee daalimiinta ee qabyaaladda ku taageeraysan aan iska difaacno AMISOM is occupation waa runtii suninka warka soo qoray waa gumayste intaasaan AMISOM uga baxaya ku daahi maayo dalkan xilligii loo yeerinayay iyo xilliga amnigaaga ma soo karnan lahaa ma ahayna xilligan ciidan ku filan oo meel walba ka boodayo oo special force ah oo AMISOM ka tababar badan oo dal kale oo ka dhaqan fiican oo gabdhaha xoogayn oo xoolaha wasayn oo wax u waxaynayn baan haysanaa alxamdulillah waa isku filanahay xaarkiina nala dhaafa ku dhax inta kadib waxaan rabaa ninkii odaga ahaa ee Siciidani ahaa hiding candidate ingiriisku dhaha hiding candidate waa candidate isqaranay maxaa keenay inuu isqarayo fiiri waa hiding candidate fiiri dunida ma ahan qof madaxweyne raadinayo isqaranay waligaa maartay heerka aan dadkan gaarsiinay baan ku sheegay haddaan difaac qaran heerka aan dadkan gaarsiinay markii qofku wuxuu yahay dadka barto iyo qofka aqligiisa markaa dadka barto markay dadka ku fahmaan inta ummadda soo dhex istaagtay musharaxa waa sii hormarsadaa sanad ka hor uu sii sheegtaa 2 sano ka hor uu sii sheegtaa doorashada oo ay ka dhiman tahay Agosto iyo September ay ka dhiman tahay oo ay 2 bilood ka dhiman tahay waa hiding candidate ninkii odaga ahaa wuxuu aaday Kenya Imaaraad buu sii aaday waa soo noqday intii Imaaraadka tagay waa loo yeeray waxa lagu yiri horta wuxuu yiri dekada garacad iga xaraashta kow dekada garacad halay xaraasho aan doorashada ku galay 200 milyan halii hormariyo waxa lagu yiri lacagtan waxaan waa shirkad dhaqaalaha marka bixinayno waxa weey waxa loo baahan yahay in wax ma aragtay logic aan ku bixino dawladda dhaxasiix noogama haysid waaga hore aan dekadaha Cabdulle kala qaadanaynay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Umar Cabdirashiid iyo ayaa noo saxiixay ra'iisul wasaare saxiixay noo haysid madaxweyne saxiixay noo haysid adiga maamul goboleedka si wax ku siinayna lambar 2 waxaad samaysaa afti ka soo qaad shacbiga deegaanka degan xitaa aqal galbay noqonaysaa dadka garaac degan ee beelaha Cabdi Ciise iyo beesha reer Nimcaale ee Sacad ee deegaanka degan ee dirta qubayska ee halka degan ee suraha ka soo qaad afti ka soo qaad waayo districtigu ma ahan deey moogtahay tuulooyinka hoos tago iyo deegaanka hoos tago garaac degmooyinka iyo tuulooyinka xukunto ayaa laga xisaabinaya dadka marka qabaaylaadka deegaanka degan ee dirta leh habargeys Sacadka reer Nimcaalaha leh iyo nimanka leeyahay Cabdi Umar Maxamuud beesha degan ka soo qaad afti odayaashooda iyo wuxuu saxiix ka soo qaad balxtaa ma keeni karaa marka saxiix oo odayaasha surre ma ka keeni karaa saxiix odayaashii Cabdi Umar Maxamuud ma ka keeni karaa kuwii Sacad ma ka keeni karaa waa may odaga waa ku soo hongoobay lacagaan meel ku daadina ma haynee adeer macaane iska bax baa lagu yiri waa ka soo huleelay markuu saan Nairobi u soo galay bay garaw bilk ka tiri illa nin meesha waxa fadhiyo gudoomiye baarlamaanka oo aad u caraysan oo dhaqan xumada waayo waxani haddii aad dhaqan xumo dugsatid waa waxa dhaxal carruurtaada uga tagayso ninkan odaga ah abwaanka khayr Allah si wuxuu fahmay kursiga uu ku fadhiyo maxaa baylahada ka dhigay maxaa xildhibaankii u horeeyay ee gudoomiyihii hore ee Cabdiwali inta u cayrsaday maxaa kii Faroolo u cayrsaday maxaa waxaan ka dhigay softida ka dhigay kursigan beeshan warsan galay ay ku fadhido maxaa softiga ka dhigay galgacayl uma soo fariisan markii laga cayriyay ninkii odaga ahaa ee lagu bahdilay raggiisa lagu laayo waliba soo dhiiga diyaalo raggiisa lagu dilay uma fariisan galgacayl ee inuu aarsado doonay inuu waxa way firi ceeb bay ku noqotay beesha kursiga iska leh ceeb bay ku noqotay kursigaasi maalulba in wax xun oo fudayd ah la siista ay noqoto la iska leef wuxuu dhijir kii xunka Abtiliban waa leefa in maalin walba la leefo kursigan beesha warsan galin la leefo oo kursigan kooxda Aranjana lama taabtaan u noqdo madaxweyne ka soo yimaado u dhameysto kana 3 gudoomiye baarlamaan u gaaro oo la ceyrsado la kufsado maxaa keenay aqliyad buu ka shaqeeyay ninku inuu saaw aqli badan yahay uma qabin abwaanka halkaan ka salaamaya abwaanku wuxuu yiri kursiga horta wuxuu la ekeysiyay kan dani uu ku fadhiyo 44
sidoo kale guddoomiyaha wuxuu la ekaysiiyey hadduu xilka ka dhammaado oo guddoomiyaha baarlamanka oo puntland mishaarka uu madaxweynaha qaadanaya inuu qaato taasina marka waxaa keenaya waxay tahay markii intaasoo dhan uu ku samray ayuu dani u yeeray dani waa dagaalamaysay waan ku garab istaagnay waad shaqaysay shaqaad qabatay laakiin waxaan rabnaa adigu nin waxaa tahay reer hebel oo qabiilkaas anna qabiil baan ahay degaan baan matalaa xildhibaanaan baarlamanka jamhuuriyadda federaalka aan ku leeyahay aqal saraan ku leeyahay waa inaan tala ku lahaada may tan anaa iskale u dhaxdini tan anaa iskale tala kuma lahaanaysid cabdirashiid markiibuu go'aan qaatay inuu awooddiisa simo uu la simo awoodda puntland madaxweyneheedu aan la cayrin karin oo afartan iyo afar xildhibaan lagu rido madaxweynena 44 lagu rido dani marka saasuu leeyahay sidoo kale wararku waxay sheegayaan culays kaga yimid madaxweynihii ka horreeyey ee cabdiweli maxamed cali gaas oo ay asaga isku afdhaafeen waxay ka sinaayeen farmaajo in la rido laakiin aragtida farmaajo lagu ridayo way ku kala duwanaayeen war wuxuu ku yidhi war adiga puntland baad joogtaa soomaali meeshaad ka joogto waad og tahay cid ku dooranaysa ma jirto ninkan ha noo loogine ninkan qaabka aan ku ridi karno aniga shariif sakiin iyo rag badan baa ka hadalnaye noo daa oo na garab istaag anaa musharax guddoomiye baarlamaan noqonayo dabadeedna raxweyntii iyo wixii oo dhan baa igu soo ridayo saasaan ugu saarayna hadhowna nimankii ku fariistaan ka dilaadilaysnana laakiin si kale oo lagu ridi karo waa isdhaafeen cabdiweli iyo ninka leeyahay cabdirashiid ee guddoomiyahana waxay isu yihiin waa taqaanaa waa saaxiibo aad bay saaxiib yihiin ka shaqayso ku yidhi marka anaa gacmaha ku haye ka shaqayso oo kursigaagii simo saaka marka beesha kursiga iskale warsangeli saaka waxay joogtaa guul bay fadhidaa guul kursi dambe oo lagu loolotamayo oo lagu yoyotamayo oo marba la leefayo waa dhammaaday saakayto kursiga ninka warsangeliya hadda ka bacd cabdirashiid saaka hadduu xilka ka dego ninka dambe warsangeli oo la dooran doono 4 sano u dhammaysan doona nin buteeri leh oo kibray oo waqtigiisa dhammaysanayo oo qabiil matalayo oo landheero noqon doona cabdirashiid baan amda ida ku mahadsan beerka la iskala baxay weligaa rag xasaarsan islaanta waxay tiri rag iyo masba yaraan loogama tilaabsado intay marka duurka wareegaysaa laga sii shaqaystay muxuu marka sameeyey kuwa yar buu soo abaabulay marka uu leeyahay ku kaca oo intuu lacag dhaqaalaha soo siiyey kuwa ayaga uu soo abaabulay mid kilacliya lacagta uu doorashada ku soo galay iyo ninka soo kaxeeyey iyo ninka yiri orod reerkiina kursi u dooro iyo ninka reerka waxa uga doonay waa guddoomiyaha baarlamanka waa ninka cabdirashiid ayaa soo gacan qabtay asoo meelaha iska tagtagan iska wareersan nin wax gooyana ma ahan ninka meesha fadhiya wax gooyo saaka beeshuna waxay ku gowracan tahay qaadanaysaa taladeedii ninkan saakay u soo dhiciyey ka qarni maamulkan hadduu sii jiro nin dambe oo beeshaas oo beesha walaalaha warsangeli oo kursigiisa lagu dhacayo ma jirto waayo ninkii ahaa guddoomiyihii baarlamaanka xilligii faroole waa la cayrsaday kii guddoomiyihii xilligii labuu cayriyey faroole cabdiweli labuu cunay kanna 4 buu rabay inuu cuno warsangeli oo kufsado cayrsado tii waa laga hortagay marka ninkii halkaasay beleg oga tiri horta colaadna halkaasay ka haystaa hadda marka xamaru ku soo wajahanya maxaa marka asaga iyo Kenya dhaxmaray iyo Uhuru Muigai Kenyatta sidoo horta ballan lagu sameeyay oo la adag waa cabsan yahay oo xaq aaday oo safar oo xaq aaday oo naagta hergab kaga dhacay oo naagtiba ama taqaanaan oo galeen bal adiga karantiil 10 beri suuq hada ka timid Abu Dhabi madaxweynaha lagu ma geyn karo markuu 10 beri joogo karantiilka dhamaysto oo la baaray baa loo geeyay horta ninka odaga waa u mahad celiyay aad u mahadsantuu ku yiri shaqo fiican aad qabatay inaad farmaajo ka jijageliso oo aad maxamar hub geyso oo aad colaad kiciso oo aad gada ila difaacdo oo aad Axmed Madoobe ila garab istaagto ila difaacdo oo rabitaanka iyo hamiga anagu dawladda Kenya ee dhulka aan rabno ee aan Kenya ka rabno aan rabno aad nala difaacdo waad ku mahadsan tahay waxaan ka rabnaa shaqadaadii waa gudatay anagu waxaan haysanaa dhowr iyo 20 xildhibaan oo aanan waxay yihiin aanan ogeyn xildhibaanada xooggoodii iyo istiraatiijiyadda xildhibaan gobolka gaday ku dhaceen hal xildhibaan oo baro Kenyaan ima soo baxayo oo aniga ciidankayga oo Kenyaan ii soo bixi maayo 20 iyo dhowr xildhibaan baa haysanaa nin oday nala shaqeeyay dalka Kenya abaal weyn u galay oo nagala shaqeeyay badii Soomaaliya oo hay'adaha Norwegian-ka noo keenay oo inaan badan Soomaaliya ku qabsano noo keenay oo dhaqaalahan Soomaaliya ku galnay noo keenay oo
كبعدنا الدولة دي محمد عبد الله فرماجة مدحونها كأها صو حفيز كبرايم مينستر النجا كينيا حفيز كبرايم مينستر كل شغينيني أو دبلوماسيين هير سراء أو كينيا أو كمدي هاي بيتر كوانجا أو كمدي ويل كي يرى وده شيء بيش ورا لها عبد وق أو قاعدين وكده شقيني إنه بس قد كيان كها وكده شقيني حفيز كبرايم مينستر شقده ونن كان نوقبتي وحول بقي وحو شاتقه أو حرتو يا بجامده أو فرماجة حرتان أوجين شخصي عن مركز قيمها سي وحا إنه قلي ضل كان لسه شقي قيب كها اسمها مامل كان اسمها يجو الزاني اسمها عيدا مدي ما هي كمانجو دولة دي نروي اشتال كباري سيئك يعني عدلا كيما تيكرونا ninkaasaa musharax noo ah waana ka ballan qaadnay asaguna hadduu qabsado dalkaasi wuxuu noo keenayaa dalkii gobolkii la oran jiray Jubbaland ayuu noo keenayaa magaalooyinka aan rabno iyo xuduud dhul iyo badba naga maqan gacanteennay soo galaysaa marka adigu Puntland aad joogtaa Puntlandna dima noo dhow anaka istaraatiijiye aan wax kugu siin karno iyo wax xagga naga jirane ma jiraan meesha aan ku dagaalamayno waa halkan ninkaasaana hadda tijaabinay ninkaas waa ra'iisul wasaare Xasan Khayre ra'iisul wasaare hore Soomaaliya asaana noo sharaxan buu yiri iska dhaafa Axmed Madow marun baa yiri Axmed Madow anigu dawladii meesha ugu haysay aniga meesha ay keentay faarowga iyo kaaraha ay soo saartay Kismaayo ay keentay haddana igu ilaalinayso wadanka haysato in cuntada liida dhamiyaano tuug oro biijalaho jamahad in cuntada liida dhamiya keentay gaarsiisay ma ku tijaare karo wala cayrinaya biir mid kale keensanaysa marka waashiidan ilaalsanaya waa ku ogahay tolnimo waxaad igu qabatay waa abaalkaaga Allah gudi karo hore u soco nasiibkaaga kaasho ninkii oo niyad jabsan dhaqaale hayn Dubai ku soo hungoobay Nairobi ku soo hungoobay Kismaayo ku hungoobay Puntland ay black country ayaa wuxuu ku soo wajahan xamar god walaal qodin haddaad qodana ha dheereen ku dhici doontaa lama og maxay la hor iman marka Soomaali maxay Soomaali la hor iman oo ay saaki xamar buu raba markii inuu ka ololeeyo oo yiraahdo bal dhaf kale ma taalle ninkaani saan kursiga ku dhaafin karno oo aan kaga ridan karno aynu ka tashano u imaanaya shalana hadal baa u horeeyo nimankii odayaasha ahaa ee dambiga u galiyay ee madaxweynayaasha dalkan ka ahaa ee sharafka iyo karaamada ku lahaa ee astaantii qaranka ahaa oo u qaawiyay oo qabiileeyay oo mooriyaameeyay oo ceebeeyay oo karaamada ka dilay na xamar bay u fadhiyaan wasuuriya bal ilaahay baan idin ku dhaariyay muxuu kala kulmi doonaa ilaa rafiiri hadday nimankaas muddooda dhinac ka gelin lahaayeen magaalada dhinac ka gelin lahaayeen oo iska fariisan lahaayeen oo aysan isbaara dhigteen oo aysan ay Kismaayo ka digi lahayn oo ay mooriyaanimo samayn lahayn ummadda Soomaaliya saaka sharaf iyo karaaman u hayn lahaa aniga kula hadlay gudoomiyaha difaaca qaran karaaman u hayn lahaa ilaahay ugu ogyahay nimanka uu shaarkoodii iyo sharafkoodii iibsaday war waxay garan waayeen war madaxdii astaantii qaranka tiin war madaxweynayaal baa tiin war dal baad soo maamusheen war astaan baa tiin war ka leexda iska dhaafa halkaad u socotaan idaba qaadee wiil xuno barasaab gobolka ah oo shalana wasiir ku ahaa Yuusuf ku adeegsano sharafkaaga ku ciyaarin raggi garan waay oo uu yiri waa dhisaya oo fagaara hortooda dhabarka uu ka taabtay ayuu haddana wuxuu ku yiri waxaan ku aamino ma haysataan maamul ma xukuntaan maamul goboleed ma xukuntaan dawladda ma haysataan niman wax haysta ma tihiin inkuma khasaarin karo ma annaga saana leedahay war ma annagoo sharafkaygi karaamadayadii ciid diintayadii cirdayagii waxaan ummadda u soo haynay aad shidatay oo aan wajigaaga u gubnay anoo madaxweynaha baan isbaara dhigtay oo aan god qotay anoo madaxweynaha baan saraakiishii qaranka Soomaaliyeed kala qabiilaystay anoo madaxweynaha baan maamul sharci darro oo Kenya oo diyaarada Kenya oo Saragoysa ugu tagay Kismaayo waxaas aan ku raali gelinay anoo madaxweynaha ayaan qabiil noqday waxaad nooga tagtay ma jiraan maanta miyaad ina maanta waxaadna leedahay intaasoo sharaf dil iyo bahdil adoo inoo geystay oo dhibaatada inoo geystay inaad maantana tiraahdo idima soo sharaxayo waxna idima siinayo waxna qabta ma maanta marka dana waa ku soo guriyo noqonaya waa imaanaya xaqaana way kaga shidan tahay halkaana way kaga shidan tahay xamar buu imaanaya muxuu la imaanaya marka wuxuu iska soo hormariyay kii Xuseen Cabdi Xalane bal Xuseen Cabdi Xalane yaa dooranay Xuseen Cabdi Xalane yaa dooranayo yaa rabo xitaa labada dhowrka xildhibaan beesha asagoo ka dhashay cawliyahan wallahi isdooranay beesha cawliyahan uu ka dhashay qayamka iyo meesha uu ka joogo qof waxay u yaqaanaan dhintay
waayo cawliyahan dhibaatada loo geysto qayb ka yahay waxaan si hoosaan uga warqabnaa xuseen cabdi xalane iyo cawliyahan xaggee kala joogaan xitaa xildhibaan buu ka waayey federaal ah iyo senator iyo waxay xaq u lahaayeenoo ka waayey waxa keenayana waxay tahay cawliyahanku dhibaataa gudaha kenyana loogu geystay gudaha soomaaliyana loogu geysto madow u geystay cawliyahanka waxaa isbahaysi u samaystay beesha axmed madow uu ka dhashay reer cabdille ee reer galbeedka ah iyo beesha cabud waaq oo yuusuf xaaji ka dhashay gaariso ayagaa u badnaa boqolkiiba 70 beesha cawliyahan ahayd maadaama ay soomaali buyuuro neutral ay yihiin ayaa laga soo barakiciyey guryahoodii bosaskoodii la qaatay la soo cayri isbahaysi baa loo samaystay kursigan hadda uu ku fadhiyo odagan uu ku fadhiyo aadan unsi waxaa lahaa faarax macalin dawaara laga soo dooran jiray dagaal adag baa dhacay isbahaysi waxaa dhacay labadan qolo oo qoladan deegaanka degan ee Kenya u badan dad ogaadeen maqasho Kenya degan cawliyahan baa u badan lagdheera iyo dhulkan dhan ilaa gaarisa degan waa la soo barakicay waayo ayagu waxa weeye waa Soomaali buure waa Soomaali nadiif ah waa Soomaali kaliin away ma ogola waxaan qabyaaladan iyo qurunkan iyo dadka in la baabi'iyo in gaalada dadka loo duleeyo marka Yuusuf Xaaji oo annaga Soomaaliyan kula qabanayna war annagana beeshan cawliyahan nala bahdila oo wixii meesha degan ama wajeer degan ama dhulka degan oo dhaqaalaha haysta dhaqaalana ula caburiya oo nala qabsada oo nala bahdila saasaa lagu heshiiyey tii markay gudaha loo soo gudbay dhulkaas ilaa iyo xuduudda laga soo bilaabo oo ilaa iyo 50 kilomitir dhoble marka xagga u aad xaggaas ay badhaadha u aado adu aad xuduudda Kenya xad ka raacdo cawliyahan baa degan ilaa saa u soo raac oo soo aadaa meesha la salagle cawliyahan baa degan intaas marka dadka nimanka saa u ballaarnaa halka deganaa ninka magaalooyinka ay deganaayeen iyo deegaanka cawliyahan deganaayeen axmed madoobe ciidanna uma waayin amisom buu haystay Ethiopia xoog loo haystay oo asaga u shaqeynayso Tigray ah wuxuu u qaban waayay awoodooda inay soo baxdo diidana xaggana waa lagu dhibaateeyay waa lagu caburiyay marka ceel ay biyo ka cabaan iyo tuulay harsadaan baa dhankii gaarisan looga soo diiday dhankan Jubbaland tuulay ay degan yihiin oo xor ah loo diiday marka waxa laga dhigay magan waayo hadii ayagu qabsadaan ninka ogaadeen hadii wax helay waa nimanka cawliyahanka meesha si wax lagu dagaalamay fiiriya waxyaalaha lagu dagaalamay idin sheegaya markay taas dhacday marka cawliyahan intiisa badneed go'aanka wuxuu qaatay inaan Soomaalina lagu dirin colaad beenan la gelin reexan bay haysto reexan ehel baan nahay taris ehel baan nahay walaal baan nahay isku ceel baan nahay waxba nagama dhaga dhaxayaan colaad nama dhaxtaalo waa wada noolaanayna dalkan wada degannahay colaad aan anagu u qabna ma jirtay dhahan asaga marka wuxuu noqday kuwa u shaqeeyay ee dabad ilafka ahaa ee raacay ee dadkooda in la duleeyo oo garaadii buu noqday marka waxaa soo dhan oo taariikha ku keenay beesha cawliyahan halkii asaga ka taagan yahay ninka la yiraahdo xuseen cabdi xalane baan horta idin sheego hal xildhibaan oo cawliyahan ilmay taas marka waxay keenaysaa in habar walba hooyo anna tiraado marka warma ma hayna waxa la gabar yar waxay aragtay hooyadeeda aabaheed saaran yahay kaasay aaba anna tii lama rabo baasha waxa la rabaa war dalkan kursigan marka aad isku qaawinayso aad maahanayso in uu kursigan maxaad ka qaban kartaa aqligeedii ma leedahay hogaam leadership nimadeedii ma leedahay garashadeedii ma leedahay waxa soo dhan baa loo baahan haddaadan intii aadan lahayn waxa weeye waa hooyo anna waa aaba anna wax macna ah waxa ugu ma keenayaan musharax baana xogaal cagal soo siyo sharaxday waad bixisay tan labaad maalintii uu Nairobi tagay oo xaflad buu ku qabsaday niman marka oo reer gaarisa hadlay waxay dhahan annaka xildhibaan aan garanayno oo annaku annaqaano oo aan garanayno oo wax ku aaminan karno oo walaha annaka ka Soomaaliya aan ka rabno bacda leeyli aan ka rabno aan heli karna annaku wadana Xuseen Cabdi Xalane way badaas noo keeni kara dhulkaas noo keeni kara Jubbaland as lagu wareejin kara sugan dooranayna annaka bisharaxayna asaga way dadka marka la waalayo beenta iyo malawaalka loo sheegayo ee la waalayo baan la yaabanahay kaasina wax macna ma keenay danina waxba ka soo qaaday ummadda Soomaaliyeed way baraarugtay ummadda Soomaaliyeed hore u socotay dalkeeda inay difaactay diyaar u tahay dawladnimadeeda diyaar u tahay saakayto nimanka fashilmay ee dalka siyaasadiisa ku fashilmay ee qaadan ahaa ee dhul iyo dad iyo waxaan haysanay iyo sharaf iyo karaamo waxaan lahayn gatay saakayta dib noogu soo noqon mayaan waxaan rabaa inaan ayagana u sheego war Soomaaliya way ka gudubtay xilligii wiilal safiira ah oo dawlado kale laga soo diray
ay Soomaaliya arrimaheeda masiiriga go'aaminayeen waa ka gudubtay Soomaaliya inaad ogaataan baa la rabaa Soomaaliya way ka gudubtay dawlad hebel baa ay wadato way ka gudubtay saaka ninkay shacbiga wataan waxna u qabtay ayay dalkan iyo dadkan wax ka noqonayo oo shacbiguna ay dooranayaan laakiin cidina saakayto niyadeeda aysan gelin nafteedana been u sheegin naftooda been aysan u sheegin ha islu goynina saakayto jaajuus ibna jaajuus wadanka wax kama qabanay aniga xuseen cabdi xalna waxaan bartay 1998 kii aan bartay 1998 kii ayaan xuseen cabdi xalana bartay xuseen cabdi xalane magaalada Baarey buu joogay waa laga qaaday waxaa la geeyay jaamacaddii civil service-ka ee Milasa Sanaawi oo lahaa ee jawaasiistu ay ka soo baxeen ee dadka asaga jawaasiistu ay ka soo baxeen ayaa la geeyay waa lagu soo tababaray waxaa ka mid ah asaga ninka la yiraahdo ina jira qaran leh Cabdirashiid jira qaran leh Axmed Madow wasiirka maaliyadda u lahayd ee walaalkeen xildhibaanka ka mid waxaa ka mid ah ragga jaamacadahan ka soo baxay Sambalo Shahan baa ka mid waxaa ka mid ah ragga civil service-ka la soo baray darwiishkan baa ka mid ah civil service-ka waa jawaasiis canaasiir TPLF ay dalkan u tababaratay oo ay la soo baray mabaadiida ay Milasa Sanaawi uu leeyahay jaamacadda Addis Ababa ku taalay 3 sano Addis Ababa fadhiyay oo la biirayay oo jaamacaddaas uu ka soo baxay waana kuwa loo soo dirsada dalkan ee shaatiyaasha kale ee kala nooca ay noo soo gashtay ee dalkan inay duleeyaan doonay marka waxaan leeyahay ninkaasi marka saas horta jaajuus u ahaa haddana waa jaajuus Kenyaana wax macnaha dalkan ka leeyahay mal inta soo baxay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed su'aalna weydiiyo 4 sano oo la soo dhaafay iyo 4 sano hadda joogno qiimeyn ku samay bal qiimay ciidamada qaranka Soomaaliyeed dharkooda qiimay bal aragga ciidamada qaranka Soomaaliyeed qiimay qaabka ay u dhisan yihiin qiimay nidaamka dawliga dalka ka dhisan qiimay maamulada dawladaha dalka ka dhisan qiimay waxay rabeen 4 sano ka hor dalkeena waxa ka dhisnaa maamul goboleedyo iyo nin xamar jooga oo barasaab ah dhammaantoodna Addis Ababa looga taliyo oo aan safarkeedu wax ka ogeyn oo aan heshiis wax ka ogeyn oo wuxuu dalkan ka yahay aan jirin ee mooga ah ayaa dalkan ka jiray 4 sano ka hor mustacmarad Tigray ah oo Getajo Asafa ninka la yiraahdo ee sirdoonka Kenya haysto ayaa Soomaaliya madaxweyne ka ah safiirka Tigrayga wuxuu joogay Garowe safiirka Tigrayga wuxuu joogay Baydhabo safiirka Tigrayga wuxuu joogay Kismaayo wa alaykum asalaam safiirka Tigrayga wuxuu joogay Hargeysa safiirka Tigrayga wuxuu joogay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraheeni madaxtooyadeena qaranka hadda Abiy Ahmed saaxiibana dawlad ahaan iyo dal ahaanba ma ku xusan karnaa kooda luuliya xarunta madaxtooyada Itoobiya su'aashan weydiinaya xarunta madaxtooyada Itoobiya ma ku xusan karnaa oo ka geeyna ma jari karaa Abiy Ahmed Itoobiya cunayso way qarannimadooda meel uga dhacay وعطيني مستعمرات دمان مركز قبل الله دلك ودن وحلقة حسي جنبوت صبات دمان مدحنا مامل قبل هذا لما كشيك تكراج وشقيه بهر بين السبوج بيتجرين دل قميص كجرا 4 سنة كهر قميص كجرا الحين مدحوينه هنا معوش تكراج قارت انت الله وحره ايوم مقالات فديي وبحردار تجي وتجي هواسه وتجي جقجقو وتجي ماشي اللي محي هي نازرين oo tagayay meesha la yiraahdo kilka maxaa been shangulka oo dhamaan kilada Itoobiya dhan tagayay asoo macawis inta halka u xiran tahay oo ag fadhiyo Dabrasiyon Makaayil Cabdi Ilay madaxweynaha deegaanka Oromada ninka la maxaa magaciisi muxuu ahaa ninkiisa wasiirka sharciga laga dhigay hadda xabsi guriga ku jiray Oromada ahaa raggaasoo madaxweynaheena la mid ahaa dalkayagu wuxuu ahaa dal ay Tigraygu haystaan oo dhammaantoodna nabad sugidda Tigraygu waxay rabaan hadday xildhibaan rabaan hadday wax rabaan ayagu ay waxaysanayeen maanta maxaynu joognaa markii laga reebay 2 magaalo 3 magaalo markii laga reebay hadda dalkeeni 79% dalkeena waa xor saakay madaxweynaha Dhuusamareeb fadhiyo Getajo Asafa ma yaqaano madaxweynaheena saaka Baydhabo fadhiyo Getajo Asafa ma yaqaano gudoomiyaheena gobolka Banaadir Getajo Asafa ma yaqaano saakayto kan Hirshabelle fadhiyo ma yaqaan ka ya intaas horta candaba waaxibine intaas oo guul ahaan gaarnay maamulkii Tigrayga ahaa ee dalkeena curyaamiyay wuxuu naga hor istaagay ciidamo qaran dalkan inaan dhisano naga hor istaagay
ما إلا تهي هذه تجريجة مستعمرة دي سي سناوي جوجلها ويل كان جرجر هدا كبو حرجها جيدها كجبودية إذا بقيتها كنا عيو يويل كان هرم عاد هدا قدها كسر دعيو إنه جر لها مقولتها نصر إلهي كينوي نصري إلهي كينوي بل عضو اسكو قيمايو أفر سنة دولة جرتي أو هل مشاركوا باقا أفر سنة أو دولة جرتي أو وحي ماسك كل عيو حريهين أفر سنة دولة جرتي أو أن وح فرقنا لو سمين أفر سنة دولة جرتي أو لستي عيدا مدى قرنك أفر سنة دولة جرتي أو هيئاته هذه السفارة هذه أرمها دي بدأ كل لستي أفر سنة دولة جرتي أو أنا مدحويني أنتو أرض حالنا أن looga yeeranay meeshii safariyo madaxweyne Soomaaliyeed sharafka iyo karaamada ka badan oo la qaban lahaa bal adinka dadweydii ii sheeg ma waxaad rabteen oo aad u hilowdeen oo aad u xiisteen inaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ninka hadda noo ah Maqayre oo yiraahdo beher bayna sabooj inuu yiraahdo safaaradda maxayto ra'iisul wasaaraha xafiiskiisii oo keeg oo meel zanaawi waqtigiisna gadaal saarto oo halka keega ku gooyo oo kan Somaliland keega halka ku gooyo oo kan Puntland keega halka ku gooyo oo safiir saddex laba xidigla Tigray ah oo ka qudbeeyo ee madaxweyne rogtaan taasaa gobonimo ahayd oo dalka horumar ku gaaray Soomaa kuwa marka waxay ku doodaan madaxweynihii hore maamul goboleedyo iyo dawladdu isku hayay dadkan caqliga lahayn waxa loo sheegaa madaxweynuhu wuxuu ka mid ahaa maamul goboleedyada dhammaantoodna Getajo Asafa ninka la yiraahdo sirdoonka Itoobiya haystay iyo ninka wataadir maarajaga Itoobiya haystay ayay dhammaantood hoos tagayeen macallin madaxweynaheena macwiis baa u xirneed wax maamul ah iyo wax gacan uu ku hayay ma jiro heshiiska doorashada laga gaaranay gabraa gaaray kuwaana afka ka laaday asna afka ka laaday qasabna ku sii horta inaan runta isku sheegaan rabay dalka annagu waan joognay waana ka soo shaqeynaa waan garanaynaa yaa loogu sheekeynaya waxa dalka maxaa maamulada soo gal xagee joogeen maamulada soo gal xagee joogeen dawlad baa dalkan Tigray leeyahay mustacmarada dalkan haysatay ayadaa waxaan samaysatay ayadaa waxaan dhisatay ayadaa waxaan wadatay madaxweynuhuna barasa magaalada Muqdisho u joogo ahaa annaga madaxweynahan iska dhahaynay laakiin waxba dalkan kaba ahayn marka waxay soo galaan waxa way dawladda mustacmarada dalkan haysatay ayaa wax yeerinaysay laakiin hadda walina kuwa waxay aaminsan yihiin oo wali waxaan ay mustacmaradii iyo qurinkii ka dhaxdashay waxay aaminsan yihiin in awoodii Tigrayga ay nooshahay waxaan xalay mid baa igala soo hadlay magaalada Kismaayo wuxuu ii sheegay niman wuxuu yiri Itoobiya aad u nibca iyo niman kale oo islaha niman kale Itoobiya aad u nibciin oo waxaan arkay wiil aad inta u qayray aad kuwa shaacadays aad u cabayo oo isku marxabaynayo oo dhahay in kuwa dharasaajo in kuwa mallasaajo ku haye war maxaa dhacay u dabaldegaysaan waxaan u dabaaldegaynaa soo noqoshada Tigrayga ay maqala iyo Aksum iyo Adagrad iyo meesha la maxay ahayd Badme iyo meesha la Adwa ay qabsadeen aan u dabaaldegaynaa oo maxaa ka galay Tigray maxay kaaga tagtay war miyaadan waxaan ku iribiyo reer hebel ahayn oo gabdhahaaga fuulin oo odayaashaada ay nolol god ku ridin oo ay qaxooti ku badin oo ay dalkaaga qaadan oo ay ku dhibaateen war miyaadan hayn ninkii jamhadka ahaa ee dunida kala dhiigga dhadhansiiya xaarada ee la dagaalamayay ee cadow u ahaa miyaadan hayn Tigrayga oo way duurka ay galiyeen oo walaalkii ku direen oo hooyadii lagu diray oo miyaadan hayn war goorma Tigrayga gacal ku noqday war ninkii aad mucaaradaysa miyuusan ahayn ninka la yiraahdo Dr. Abiy Ahmed miyuusan ahayn kii duurka ka soo saaray argagixisad ninka maanta aad u doodayso u qaylinayso caawa shaah u bixinayso war miyuusan ahayn kii argagixisad kugu tilmaamay doqon baan abaal lahayn intay dunida nooshahay doqon baan abaal lahayn intay dunida nooshahay war maxay Tigray nooga tagtay war Tigray sootii carruurtaada gubaysa ma ahayda kala dilaysay oo markaa duurka gashay oo argagixisad ka dhigtay Soomaaliya ka soo qabsanaysay war goormay Tigray wanaagsanaatay maya Abiy Ahmed soo kan geedka ku xirneed ka soo furay ma ah oo kiri Etoobiyaan baa tahay dalkaaga ku soo noqo dadkaaga ka mid noqo dimuqraadiyad iyo xorriyad dalkan noqo dalkaani xukunkiisa u tartamo heer federaal iyo heer maamul goboleed war sharaf inta ka badan ugu sharaf la maxay tahay waa qaracniyo dadkeena marka madaxa loo rogay
dadkeennii ma garanayaan meel ay u socdaan iyo meel kale marka waxaan leenahay doqon ha gargaarsan hana u gargaarin marka amisom iyo kuwa ku dhacay sanadka dib u dhac baa dhacay iyo maamulada wada shaqaynay iyo xasaradaha dhacay waxaa la rabaa wixii shalay ay u barteen baa la rabaa beenta ahay dekedeena cashuurteena tigreega qayb qaadanayay qayb kenyaan baa qaadanayay saasaa loo kala goosanay deeqaha caalamka la siiso waa la kala goosanayay dalba xor shariif sakiin oo baydhabo fadhiyo xasan oo xamar jooga ma weydiinin amarka haddii looga yeero Addis Ababa oo degdeg kusoo galaya amarka ma weydiin diyaaradda hore ka raacay cidda lama socodsiinayn waa la weydiiyey madaxweynaheena hore xasan sheekh maxamuud waa la weydiiyey waxaa lagu adoo dalka joogo oo doorasho lagu jira madaxdaadii dhan imaaraadkaa shirsanayo waxaa looga yeeraa Abudabi maxay ka dooneen wuxuu ku jawaab waa aragteen waqtigiyaana iska dhumin marka haddii marka tuuganimadii iyo qurunkii aan u xiisnay iyo dulligii iyo gumaystaha ma waxaan u xiisnay 4 sano hore mar waxaa ahayd xildhibaan hebelow naagtaada eedisan ka baqaayay naagtaada ii keen musharaf ay ahayd waxa ma waxaan u xiisnay calanka tigreega oo madaxtooyada ka taagnaa ma waxaan u xiisnay hore mar ahaa odayaasheenni dhaqanka inuu gabro hortago war waxaasaa ina soo maray gunnimo ahayd war ma waxaasaa loo xiisaa isaaka amisom inoo sheegaysaa leeda wanaag u maraysaa war ma annaga Soomaaliya aan isweydiinne ma waxaan u xiisnay oo wanaag ahaa 4 sano oo la soo dhaafay iyo 30 sano oo la soo dhaafay oo ahayd naagtaada eedisan qaba eedisay kuwa kale ka baqayay way qurux badan tahay ii keen adoo xildhibaan jamhuuriyad federaal oo dal u dhaartay kitaab ku dhaartay taasaa gobonnimo ahayd miya la hawla wala quwwata dadkan marka tihaal baa hayo dadkan waa xanuunsan yihiin gacmaha kor u taaga bil barakaysan baan ku jirnaa dul xaj baynu ku jirnaa horta ilaahay inuu ma aragtay ummadaan caqligii baa ka dhumay inuu caqliga alla u soo celiyo u soo duceeya oo waxaad ilaahay waxaad leedahay intiinan caqliga lahow u soo duceeya in ilaahay caqliga u soo celiyo dadkeena meel ay u socdaan ma yaqaan tihaal qurun ahaa haystee u soo duceeya oo waxaad tidhaahdaan ilaahu u soo celi caqliga intay baanta siyaasiyiin balooshay waxa la halmaalanooyin intaasan ayara ka gudbaya waxaan rabaa halkan fariin ugu diro walaalaha dad nagu qaali ah isku cadow aynu nahay sharaf iyo karaamo ilaahay ku manaystay beelaha Soomaaliya beelaha ugu badan ah beela aan jaajusnimo lagu xaman ah waa beesha gaaljacel Salansoor waxaan leenahay gaaljacel Salansoor oo nimaan idin furi dooniyo idin rarin gaaljacel Salansoor oo Soomaali waxaa tihiin qabiilka kaliya ee suldaankoodii la dilay ilaa 91kii suldaan Soomaali ciididna ma dilin daarood iyo dir ma kala dilin qabiilka kaliya ee suldaankoodii la dilaatiin ee magaalada Kismaayo lagu dhex dilay 3 ii keen halaan kala baxaya may bash lagu sii haddii suldaankaasi uu daarood ahaan lahaa ama qabiilaadka kale ahaan lahaa waa la iskugu dhamaan lahaa magtiisuna haddii xitaa mag iyo wax laga qaadanayo 10 kun oo halaad bay noqon gabagabay ahaan leh taariikh harta ma ahaateen gaaljacel Salansoorow gabar yar oo la afduubay oo waa la afduubay leeyahay inay shabaab yihiin iyo inay qolo kale yihiin aan la garanayn bad qabiilaadkii yaaleen ku ratakacsanaya kan weydiiyo suldaan Rashiid Durre oo sultaankii beesha gaaljacel ahaa haddii la dilo cidi dishay maxaad inooga haysaa weydiiye ma ka hadleen maalin siyaasiin nimanka maanta idin furayo oo maanta idin rarayo oo maanta idin kicinayo waa kuwa suldaankii noomeedkiisa yaallo Kismaayo laga celcelin waayey oo tagay oo xitaa reerkii tacsi ugu qori waayey oo suldaankii guud ee beelaha beesha gaaljacel Salansoor doqon diiday iyo door waaq suldaankoodii guud oo Axmed Madoobe uu qalad ku diray oo tacsi qoyskiisa isugu tagay kuwaasa maanta in ku awr kacsanay gaaljacel nimo waxooda lahayn karamatiin nima Soomaali ah tirana Ilaahay siiyey ayaa tiin waxaan leenahay si hoose ayna u wada hadalno cadow Kenyaana haysto xaalku waa adag yahay meel adag buu xaalku maraya Kenya dalkeenni haysato taariikh xun baa dhacday maanta wiilka Facebook ka hadlay gabadha Ikraan iyo Rashiid Durre keebaa qaalisan Soomaali u qaalisan keebaa Soomaali u weyn keebaa gaaljacel ku qaalisan indhihii hogaankii aragtidii beesha gaaljacel buu ahaa من مدحوين ياله كرسي مدحوين يالكم بتليه هوية أنا كدل هيسو دانت كدل قبسو كهذا شوي أو كدل جراري ومقالده ميت كيسية لا تجي حتى ميت كيحشون وي أنا أسكي كغيب قل وام هاي هويات كشيء كان إنسان مرك
قال جعل وحن لنا يضل قلد ميدن هانجرين يا ليدن قلدن أرين كان أنو طلب تصنع لما رجع قال جعل صاحبه أن هاي إيه هالجن كمدة 8 سنة نقول سوجري لما أنا وأطلب تصنع نجود وأنا قول بقى تورديننا لكن أنا جو شعوبتي قبل داسة أيها قبل الرادين إنه هالجن كينا وذن أنا جو شعوبتي قبل داسة أو هالجن وذاك هراء سان وأهين أيها وحين نجا مكان أو بعدي قبل دونا ما أنت قد بينه وجود جيران هنجا سيديرنا دالمينتي كينيا متقنا على شو قيسياشود عبد الرحمن عبد الشكور مركو قبضان كهلا يقول لي إكرام بالأفضل تقول لي مركو رشيد ودمنا يمنن مدحوينه اسمه شرحي وزير صار نقضوه هويه هاي محو تعسيه وقلت هواي محو محل لود دلودي هواي محو قلت تعسيه ويا رشيد ورد مركو إكرام والله الله يعطيه استحجر عندي باشا أو سلطان كي سلطنة دي جود يبقر كي قال جعلنا والد دري وأنا كنت له أنتي أو this is وحن أقبلك الرم أنا أكسبت بالوي قال جعلوا مركو وحن لنا عقل وصار نقضو أنا سوسو الله بنو سهوسان وهذا دونا قبضات إن شاء الله وحن رجينا إلى عيد على عدي هايستو عدوه وكسر فجيو إن شاء الله أنت رجينا تهد على جرين أرن كانوا بروباغندا يا بين أنا مركو حسن الشيخ محمود يا عبد الرحمن يا شريف يا كهلين هذي تعسير لهاي تعيل مقبل فيري شلو واحد أنت يوجاسك من ريحان بعد أنت كسبه وجاس بها تعسيب الدنيا وكو قصبين فيري وكو قصبين أنا تقول شيء جاي وكو قصبين هذيك وحال ربع قال جعلوا كاجي وجاس كاجي بعد أنت ولا الدنيا ما حد تعسير لقوا سين أنا مركب أمين جلسوا هذا الكسال لقبا قبل أسوا بعد جوبينا إلهي لا هكيرو فيري أنت هنا أوقاتان برا حداد بيجك عبد الرحمن عبد الشكور كسو هشان تعسير ودري سلطانك الجود إيوام بيش قال جعل السمو أتكسو صارتان ولما كان واحد هوا قادلنا حسن أتكسو قادان قال جعلوا من هوياه حاتي سماراء رول بعد جنيدين نمن هوياه عدين ككرسي إن كم التلاق نوك إني ضد كلاكور يجوا إن كقط إن كدق مثل الدلائي مثل ترحيلي مثل وحي قال جعلوا عقل وهالشقي الله قال جعلوا أوذي أب كدو ضد كأدقان كتيني هلقن كقول جرتان يلا نكدرن dadka aad hiraan wada degantiin yaaleen ku dirin kuwa jubooyinkooda degantiin yaaleen ku dirin hawshu waa socota gabadhaasna waa wada raadinayna annagoo wada siman halkan ku halkiisa ha aadan leh intaasaan barnaamijka soo gabagabeynaya Soomaaliya ha guulaysato Soomaaliya ha israacdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.